السلام عليكم أحبابي ميل والبأجوكتان وإذن سلامي وولاشينا دكتورة ساتشيا وسودوا channel كيغا iyo macluumaad caafimaad oo inoo barateen fadlan haddii aad ku cusub tahay channel kayga subscribe saar like saar gambaleelkana furo si aad ula socoto muuqaaladan soo gelino موضوعنا maanta waxaan ka hadlaynaa maxaa keena dhiigga ka yimaada gabdhaha uurka leh dhiigga ka yimaada haweenka xilliyada uurka ay leeyihiin marar badan ayay noqdaan wax aan halis ahayn in dhiig ka yimaado iyadoo uurka la leeyahay waa arrin dumar badan ku dhacda dhiiggu waxa uu noqon karaa mid khafiif ah mid buni ah ama mid u eg dhiigga caadada oo kale caadada ama haddii ay la socoto cillado kale sida haddii caloosha laga qabanayo ama uu xanuun jiro farjiga ama kumaarka waxaa muhiim ah in aad si joogto ah ula xiriirto dhakhtarkaaga qaas haddaba maxaa keeni kara dhiigga ka yimaada haweenka uurka leh sababo badan oo kala duwan ayaa keeni kara dhiigani waxaana ka mid ah samaysanka ilmaha waa arrin caadi ah in dhiig laysku arko marka uurka uu yar yahay dhiiggan waxaa keeni kara ukunta bacrimantay ee ku dhegta derbiga ilmagaleynka isbedelada hormoonada galmada iyo infekshanka dilaaca xididada marka ilmuhu weynaanayaan ilmagaleenkuna wuu korayaa taasoo keeni karta in xididada yaryar ee dhiigga qaada in ay dilaacaan in ilmuhu ku abuurmaan banaanka ilmagaleenka haddii aad isku aragto dilinka ilmaha gaaweyneyda waxaa wanaagsan in ay yareyso dhaqdhaqaaqa iyo socodka si ay u gaabiyaan xididada wareegga dhiigga waana in ay iska ilaalisaa ama aysan qaadin waxyaabaha culus lana xiriir dhakhtarka qaabilsan cudurrada haweenka